Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Dhammaan ardayda Soomaaliyeed jecel waxbarashada computer science-ka waxaynu bilaabi doonaa maanta course-kaasoo magaciisa la dhaho visualstudio.net. waana course programming oo code ku saleysan ama waxa la dhaho drag and drop. insha Allah waxaan bilaabi doonaa basic vb.net inagoo waliba ka bilaabi doona meesha u hooseysa si loo fahmo. waxaynu dhamaystiri doonaa project dhamaystiran waliba inagoo ka dhigayna setup. insha Allah waxaan rajaynayaa inaynu ku darno koorsooyin badan. waxaynu bilaabi doonaa horta visual studio.net oo waliba firshakiisu yahay 2010. waxaynu ku xijin doonaa web design. waxaynu ku sii xijin doonaa programming language kale oo la dhaho PHP. insha Allah saddexda intaynu ka gaarno ayaynu wadi doonaa inagoo waliba ka bilaabi doonaa visualstudio.net. visualstudio.net-ku waxaynu ku sameynaynaa software dhamaystiran ama application desktop dhamaystiran. Visual Studio wuxuu ku xirmaa ama storage ama backup u noqda software kale sida software la dhaho SQL, software la dhaho MySQL iyo waliba Access-ka iyo kuwo kale oo badan. Access, MySQL iyo SQL waxaa jira waxyaabo badan ay ku kala duwan yihiin. haddaynu eegno Access-ka oo kale, Access-ku storage-kiisa ayaa aad u yar oo wuxuu leeyahay GB aad u yar. haddii aad doonaysid inaad ku kaydsatid Access-ka daato ka badan inta storage-kiisa uu yahay, waxaa sababi karta inuu programkaasina crash garoobo, dib noo soo kici waayo. waayo haddii aad u baahatid inaad maanta school management oo kale markaad sameynaysid inaad macal sawirka ardayga xareysid, awood uma laha Access-ku haddii uu storage-kiisu buuxsamo inuu wax soo kiciyaba. laakiin SQL iyo MySQL waxay awood u leeyihiin inay sawirka ku save gareeyaan, xog walba ama data walba aad gelisid ay ku soo kiciyaan. insha Allah waxaynu eegi doonaa VB basic. okay, waynu delete doonaa inagoo soo kicsanayna mid cusub. halkan waxaad ku qoraysaa visual oo start ah. okay, wuxuu noo saaray waa kan Microsoft Visual Studio. double click si wuu ku furmay. wuxuu leeyahay loogadan yar ee noocana. waxaa inoo soo baxay start page oo ah page-ka koowaad ee ku soo baxaya marka aad start garayso Visual Studio 2010 Professional. haddaba marka aad doonaysid inaad soo kicisid form waxaa loo soo kiciyaa laba siyaabood. kow, inagoo halkan ka nidhaahna new project ama new database project isoo kici, iyo inagoo file-kan galna then new doorana then project doorana. waa same, waa laba hab oo soo geli karno formkeena cusub ama project-keena cusub. okay, wuxuu ku soo saaray interface ay ku qoran tahay new project. already intan oo dhan weyn aragnaa waxa weeyaan waa wada visual basic, laakiin inagu waxaan isticmaalaynaa oo sameynaa application form oo ku saleysan database ama software. waxaan dooranaynaa Windows form application. halkan waxaan u bixinaynaa magacii uu qaadanayo database-ku. okay, waxaan nidhi basic lessons VB
.net halkan waa locationka uu geynayo projectgaaga okay bay niri wuxuu inoo soo kiciyey ama waxaynu aragnay form 1 marka koobaad aad start garayso projectga wuxuu kuu soo saarayaa form 1 okay formkan waxaan doonaynaa inaan magac ka bedelno formka click garaysi highlight kan yar markuu kuu saaro formka waxaad tagaysaa halkan ay ku qoran tahay text oo ah form 1 intaynu form 1 tagin waa inaynu fahanaa horta property-gana muxuu inoo qabanayaa property-gana wuxuu inoo qabanayaa haddaynu u baahano inaynu color ka bedelno ama background-ka waynu ka bedelinaa haddaynu u baahano inaynu farta bedelno waynu bedeli karnaa haddaynu u baahano inaynu size-kiisa weyneyno size waynu helaynaa like that haddaynu icon u doonayno inaynu sameyno waynu helaynaa inagu hadda ujeedkeenu wuxuu yahay inaynu formka bedelno magaciisa halka ay ku qoran tahay text ayaa tigaysaa waxaa jira laba meelood ay ku qoran tahay form 1 iyo text midi waa name-ka magaca uu wato formku midina name waa originalka name-ka uu ku samaysan yahay formkaagu oo ah name ay ku qoran tahay midna waa text ahaan name-ka ugu qoran okay waxaanu nidhi halkan waa basic listen automatically waxaa isu bedelaya halka ay inoogu qoran tahay form 1 markaynu click garayno waa kan basic listen okay VB-ga waxaynu kala qaadaynaa code ama waxa la dhaho drag and drop ama by coding bal markaynu eegayno inaynu by coding wax uga bedeli karno ama wayn ku samayn karnaa wax sidee loogu samayn karaa ama si wax looga bedeli karaa by coding markaynu doonayno inaynu VB wax kaga bedelno formkeena koobaad ay basic listen ku qoran tahay waxaynu siinaynaa formka gudihiisa double click then waxaynu qoraynaa code kaas oo ka bedelaya formka midabkiisa ama formka colorkiisa okay waxaynu qoraynaa me dot aniga oo formka ah baa colorka formku ha la mid ahaado color la yiraahdo red imika waxaanu sameynay code formkeena inooga bedelaya midabkan silverka soo xiga waynu rangareynaynaa waa tan start debugging ama F5 waad qaban kartaa start waxaynu ku guuleysanay in formkeenii koowaad aynu kaga bedelno by coding waxaan samayn doonaa haddana isagoo click by click ama drag and drop okay noo soo kala iskaree then double click si ku noqo halkii formkii waxaanu sameynaynaa wax la dhaho comment oo aanan inaga tirtirahayn code-keeni ay mar labaad u soo noqon karno okay formka click garee isla property-gii ku noqo halka ay ku qoran tahay back color waxaad tiraahdaa waxaad inooga dhigtaa bal midabkeenii casaanka ahaa blue inagoo isticmaalayna drag and drop waxaanu sameynay run waxaynu mar labaad ku guuleysanay inaynu ku bedelno formkeenii click by click ama drag and drop waxaanu samayn doonaa marka xigta halkan aragno toolbox-ki waa toolbox-ki aan isticmaalayna common controls dhan baa ku jira waxaynu ka raadinaynaa halkan wax la dhaho text qoraal okay qoraalkii waa kan waxaynu ku kala gareynaynaa formka dhexdiisa waxa ku soo baxay text area ama qoraal wax lagu qoro okay laba siyaabood wax baynu qori karnaa inaynu niraahno button marka click la gareeyo halkaas waxa ka soo baxaan waa kan waxaan soo qaadanay button halkan baynu dhignay okay button-kii magacii waynu ka bedelanaa halkii waxaynu aadaynaa property-ga name-kiisii baynu tegaynaa waa kan waxaynu nidhi okay waxaynu samaynaynaa in button-ka okay marka la siiyo inagoo wax qoraal aynu ku qorin
halkaas markay rangareyno ay halkaasi ka soo muuqato Amud University Faculty of ICT. Okay, waxaan odhanaynaa double click baan siinaynaa buttonkii, waxaan ku qoranaa text box 1 dot text. waxay kula mid tahay laba dhibcood Amud University Faculty of ICT. Okay, waxaanu sameynay code marka aynu click gareyno halkan inay halkan inooga soo baxdo Amud University Faculty of ICT. bal aynu eegno inuu codekaasi inoo shaqeeyo. Okay, waynu rangareynay formkeeni waa kan click. waxaynu ku guuleysanay inaynu sameyno code inoo soo akhrinaya Amud University Faculty of ICT. waxaynu ku dari doonaa button ay ku qoran tahay iga masax. Okay, mar labaad soo qaad button labaad halkan dhig, waxaad u bixisaa isagana magacii ka bedel masax. Okay, masax uu masaxay waa kan masax la dhahaa buttonka magaciisa. Okay, isna waxaad siin doontaa double click, waxaa ku furmi doona codekii. Okay, isna waxaynu ku qoraynaa text box 1 oo ah meesha ay wax ku qormayaan dot captionkiisuna yahay text. waxay kula mid tahay meel banaan oo wixii aan ku qoray markaan buttonka click gareeyo iga dhig meel banaan ayay ku dhigan yahay codekani ama la micno yahay. Okay, waynu rangareynay. waxaynu nidhi okay, waxa soo baxay Amud University Faculty of ICT. waa kan of ICT. waxaynu doonaynaa inagoo inaynu ka masixin kaasarkan inaynu buttonka markaynu click siino automatically uu text boxkaasi empty iskaga dhigo. Okay, waa kan click uu masaxay. waxaynu halkaa ku joojin doonaa qaybtii koowaad ee ahaa vb.net oo ah basic lesson. insha Allah waxaad ila socodsiinaya anigoo ah engineer Liibaan Cali Cabdixaafid. insha Allah waxaanu rajaynaynaa inaynu sida ugu dhaqsiyaha badan soo gelino casharo badan oo ku saabsan vb.net si aynu u dhammayno kooraska. waxaynu ku xijin doonaa kooraskii ahaa HTML ama web design oo aynu ka bilaabi doono basic isagana. insha Allah waxaan rajaynayaa khayr inaad ku xidhnaataan channelkan casharada soo gelin doono ee la dhaho VB24 channel. aad mahadsantihiin.